diblomaasiyadeed waa meeshii ugu horreysay ee laga bilaabi lahaa in safiirka horta loo yeera in faahfaahin la codsada sida ay wax u jiraan faahfaahintaas kadibna wixii ka dhalanaya haddii dhacdo tugnimo ay tahay in labada dowladood ay eegaan balse u xallin lahaayeen haddii ay tahay dhacdo loo bareeray in lagu xadgudbo madax bannaanida dowladnimada iyo maaragtay Soomaaliya inay dowladda marka ayada ay ka fakarta qaabka ay arrinta uga jawaabayso taasna waxay ku xiran tahay siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo qorshaheeda arrimaha dibadda Cabdullaahi dhacdo tugnimo ah inay tahay ayaa laga yaabaa marka ma waxay noqon kartaa arrin aanay dowladda Kenya ka warqabin in madaxweyne Axmed Madoobe uu tago magaalada Nairobi oo diyaarad Nairobi ka tagto Kismaayo tagto dabadeedna Axmed Madoobe soo qaado oo Nairobi keento wax qarsoodi ah miyay kula noqon kartaa wali horta ma kala cadda diyaaradda markay Soomaaliya galayso nambarkeeda way qarisay nambarkii laga raaci lahaa qayb ka mid ay qarisay saacadda ay socotana saacad waxay ahayd oo saacada dambe marka waxyaabo fara badan weli ma kala cadda laakiin way kala caddaan doonaan waxayna ku kala caddaan doonaan dowladda Soomaaliyeed waxaasi ay codsatay faahfaahintaasi ay codsatay ayay ku kala caddaanaan doonaan laakiin si kastaba haddaan u eegnaa waa cidda geysatayba waa duulaan madax bannaanida Soomaaliya ka dhan ah waana arrin halisteeda maxaa yeelay markii la eego dowladnimada Soomaaliya ee soo kamaysay indhaha shacabka Soomaaliyeed waxa u muuqanaya dowladoodii in ay ku fashilan tahay inay ilaalisa madax bannaanideeda marka wax alla wax wiiqaaya dowladnimada Soomaaliya cidday rabto madaxa ka ahaatee waxay u adeegaysaa dooda al-shabaab ah in ajnabiga Soomaaliya jooga iyaga sheegayaan inay la dagaalamayaan in aanay dan Soomaaliyeed wadin ay lugooyo Soomaaliyeed wadaan marka dawlad kasta oo ajnabi ah oo dhan ka sheeganaysa inay Soomaaliya amniga ka saacideynaysa oo ay la dirarka shabaab ka saacideynaysa dhanka kalena wiiqaysa madax bannaanida iyo maaragtay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya waxay u adeegaysaa marka ama si toos ha noqoto ama si dadban ha noqoto ama ogaansho la'aan say noqotaba waxay u adeegaysaa marka doodaasi ama waxay sharciyad siinaysaa doodahaasi al-shabaab Axmed Madoobe isaga maxay uga dhigan tahay markaad eegto dagaalka siyaasadeed ee uu kula jiro dowladda dhexe Axmed Madoobe waxay uga dhigan tahay in uu cunaqabatayntii ama tallaabo kasta oo dowladda qaaday oo isaga ka dhan ahayd inuu ka soo tallaabsaday Rais Cambodia kow ka ahayd uu ka soo horta ugu horeyntii waa la gilgilay waa la dhaxgalay ciidanka laga dhaxgalay wuu sigtay laakiin waxaa muuqata inuu ka soo kabsaday Rais Cambodia uu ka soo bilaabay waa doolo waa ku soo xigtay haatanna wuxuu furay arrintii ugu dambeysay ee dowladda ay sheegaysay ee ahayd in safar aan loo ogolayn oo dibadda tagi karin marka mar walbana mararka badan isaga kuma xirna waxyaabo badan waxay ku xiran yihiin cidda kaalmaynaysa oo ka tillaabsanaysa oo ku xadgudbaysa madax bannaanida iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya ka tahay laakiin kuma xirna karti shakhsi iyo kuma xirna يعني xilkas ama xeel dheernimo siyaasadeed kuma xirna waxay ku xiran tahay cidda kaalmeynaysa ee u bareeraysa inay ku xadgudubta madax bannaanida iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya maxay tahay Cabdullaahi muddo ayaad Kenya joogtaa oo suxufi ka soo shaqeeyna waa tahay haddana weli waad ku sugan tahay Kenya maxay tahay danta ay dowladda Kenya ka leedahay Axmed Madoobe ee ay u xumaynayso xiriirka iyo danaha kale ee kala dhaxeeya dowladda federaalka horta waxyaabo badan markaan ka hadlayna ma aha arrin oo hal wadan ama hal dowlad joogta waxa yaabaa in dana fara badan oo isbeersada ay yihiin taariikhda Jubbaland say ku samaysmatay haddaan aan ka hadalnana waxay ahayd in 2010kii weeraradii shabaab kadib in Kenya ay go'aansatay in gudaha Soomaaliya ay ka samaysa buffer zone wax loo yaqaan ama dhul amaan ah oo ayada shabaab ay ka xigsada
oo dhibaatada shabaab ayada aanay soo gaarin marka tiibaa keentay in Axmed Madoobe asagana ciidamo haystay inay iskaashadaan oo ilaa Kismaayo ay qabtaan marka qaabkaas hore oo ay isu kaashadeen waa ay jirtaa laakiin xaalka 13 sano ka hor ma joogo oo haatan dawladda jirta marka marar badan dawladaha danahooda ay ku xiran yihiin ay kale yihiin wadamada kale waxa muhiimka waxay tahay in aan yani warku uu kala cad yahay oo dawlad walba meeshay taagan tahay ay caddahay haatan arintan Jubbaland waxay soo dedejinaysaa in la fahmo dawlad walba meeshay ka taagan tahay dib u kabashada iyo dib u soo noqoshada Soomaaliya meesha ay ka taagan tahay dawlad walba ayay soo dedejinaysaa in la ogaado oo la wada arko dadku ay isweydiinayaan ay laba dawladood ama Kenya ay dawladda federaalka ay ka weysayo oo ugu muhiimsan tahay inay Axmed ka heshaan maxay kula tahay wallahi horta ma fahmi karno dawladaha waxay yihiin istiraatiijiyad dhow iyo istiraatiijiyad fog marka istiraatiijiyada dhow iyo fog ee Kenya ayay ku xiran tahay waxa ay Soomaaliya ka rabtaa waxa ugu muhiimsan oo markay Kismaayo iyo dhulkaas tagaysa ay sheegtay waxay ahayd inay doonaysa Bavason in amaankeeda ay sugata ammaanka ay sugaysana aagaas xadku ku xiran yahay marar qaarna waxa laga yaabaa inay ka fikiraysa aagaas xadka ah ee amaankaaga uu ku xiran yahay yaa ku xoog badan oo aad kala kaashan kartaa inay ka fikirayso waa laga yaabaa arrimo kale oo saameynaya inay jiraan waa laga yaabaa waxaad ogtahay Kenya sidoo kale inuu ku sugnaa taliyaha sirdoonka Ethiopia oo uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Kenya Axmed Madoobe iyo sirdoonka labada dalna leeyahay waxaa jiray kulamo maxaa arrimahan isku soo aadi taariikhda markaan eegna lixdamayadii Kenya iyo Ethiopia waxay samaysteen heshiis difaac oo ka dhan ah Soomaaliya waagaasna Kenya iyo Ethiopia waxa ka jira ururo oo Soomaali ah oo xurnimo doon ah oo gobolada Soomaalida ee Kenya Ethiopia doonayay inay Soomaaliya ku biiriyaan marka waxay leeyihiin iskaashi dheer oo taariikh ah oo la xiriira Soomaaliya inay mar walba u arkayeen in Soomaaliya ay halis kaga iman karta labada dalna waxaan ognahay in ay istiraatiijiyadooda haatan ay ku qotonta inay samaystaan Bavason dul ayaga xadkooda ka fog oo ay ka ilaashadaan xuduudooda oo gudaha Soomaaliya ah marka labada dal dana fara badan oo ay ka wadaagaan arrimaha Soomaaliya ayaa jira heshiisyadaasi horena way ay jiraan marka iskaashi noocaas ah inuu labada dal ka dhaxeeyo ayaan filayaa iskaashigaas iyo booqashada Axmed Madoobe maxaa kulan siyaasi leedahay horta ma hubno inay tahay wax isku soo aaday iyo in ay arrin oo la isku aadinayo laakiin labada dalba horta Jubbaland xaday la leeyihiin labada dalba Bavasonkaas ay sheegayaan waxa u badan Kenya iyo Ethiopia labadaba Bavasonka ay sheegayaan Jubbaland qayb weyn ka ah Kenya gabigeeda waa Jubbaland Ethiopia Jubbaland qayb weyn ay ka tahay marka in labadaba ay xadkaas iyo shaqayntaas Jubbaland ka dhaxaysay inay la xiriirto waa laga yaabaa laakiin ilaa haatan ma cadda oo warar sugan ma jira in maaragtay ay arrintani isku soo beegantay ama ay tahay arrin loogu talagalay haddii loogu talagalayna waxay ka turjumaysaa labada dal Bavasonkaasi ay labada dal ka leeyihiin iyo maaragtay labada dal aragtida ay ka leeyihiin Soomaaliya marka ayay arrintan la xiriirta safarka Axmed Madoobe ku yeelan kartaa xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ogtahay inuu muddooyinka u dambeeyay wanaagsanaa horta xiriirka waxay ku xiran tahay marar badan istiraatiijiyadda ama siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ilaa haatan wixii la qaaday lahaa tallaabada ugu horreysay way qaaday Soomaaliya oo ah inay u yeertay safiirka oo ka dalbatay
inuu faahfaahin ka bixiyo waxa meesha ka dhacay waa tallaabada ka horeysa in safiirada loo kala yeerto labada dal haddana waxaa kusii xiga in xiriirka la kala jarto marka tallaabadii ugu horreysay ka horreysay in safiirada loo kala yeerta ayay Soomaaliya qaaday waxayna codsanaysaa faahfaahin wax badan waxay ku xiran yihiin siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo halka ay ka gaari kartaa inay difaacda madax banaanideeda iyo jiritaanka dawladnimadeeda marka arrimahaas waxay ku xiran tahay marka dawladda Soomaaliyeed laakiin way u furan tahay in ay gaarsiiso meesha ugu dambeysay oo ah in xiriirka la jara ama ay ku haysa halkuu haatan jooga in la codsada faahfaahin laakiin sida xeerka caalamiga ah iyo dhaqanka dawladaha uu yahay haddii dawlad lagu xadgudbo madax banaanideeda iyo jiritaanka dawladnimadeeda tallaabada sharciga ah u bannaan ay qaadayso waxa ay tahay in ayadana ay arrintaasi ka falcelisa waana ognahay dawladda Soomaaliyeed qaabka ay ugu falcelisay markii ay Ethiopia ku xadgudubtay sida ay u aragtay madax banaanideeda iyo midnimada dhuleed waa tii ka falcelisay waa tii u yeeratay safiirkeeda waa tii inkastoo lagu dhawaaqay in xiriirka la jaray waa tii xamlad diblomaasiyadeed arrintaasi ka qaaday marka dawladda Soomaaliyeed ay ku xiran tahay siyaasadeeda halka ay doonaysa inay gaarsiisa ma dhihi karnaa Cabdullaahi dagaalka military iyo kan siyaasadeed ee ay dawladda federaalka ku qaaday Axmed Madoobe labaduba waa fashilmeen horta Axmed Madoobe iyo dawladda Soomaaliyeed taariikh dheer ay leeyihiin weligoodna heshiis ma ahayn oo mar walba dawladda Soomaaliyeed ku qasbanayd inay Axmed Madoobe haysata maxaa yeelay mar walba khiyaar kale u furan ma jirin khiyaarka u furan mar walba dawladda Soomaaliyeed ayadoo wadamada markii laga eego wadamada Axmed Madoobe la jira iyo arrimo fara badan oo ku gadaaman iyo ayadoo mar walba dawladda Soomaaliyeed ay 4 sano haysato oo doorasho lagu jiro ayadoo sabab u tahay dawladda Soomaaliyeed iyo Axmed Madoobe maray 100% ogolaansho ku wada joogeen waa yar tahay dawlad kasta muddo yarna ogolaansho ku wada joogeen dhowr muddana waxay ku kala maqnaan marka dawladdii ka horreysay dawladdan madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way isku dhaceen way isku dayday laakiin heerka ay dawladdan gaarsiisay ma ayna gaarsiinin Sheekh Shariifa ugu horreeyay Axmed Madoobe la kowsaday waa kii markay ciidamada soo galeen Kenya si sharci darray ku soo galeen dhahay waa kii markii dambe Kenya yimid oo ka wada hadleen oo laga heshiiyay arrintaasi waa tii ciidamada Kenya ay AMISOM ku biireen haddana Xasan Sheikh ku xigay waxay gaartay xiriir xumada Axmed Madoobe iyo dawladda in wasiirra tagay Kismaayo ay waxba ka soo qaban waayeen oo xitaa xogaha qaar ay sheegayeen airportka xitaa ay ka bixi waayeen markii dambena dawladda haddana way ku qasbanaatay oo waa kii ay qaab ula heshiisay dawladdii Farmaajona sidaas ay ahayd marka waa markii ugu horreysay oo dawladda Soomaaliyeed ay si run ah u wajahda dhibaatada Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo 13 sano ahayd maamul goboleed ka baxsan sharciyada Soomaaliyeed jawaabteeda labadii tilaabo ee dawladdu waa fashilantay ma dhihi karnaa dawladda dabcan waa dawladii hore dhana ku fashilmay talaabooyinkii loogu hortagay Axmed Madoobe tanna waa ku fashilantay marka fashalkaasna marar qaar waxyaabo fara badan keenaya oo waxa laga yaabaa in labada dhinac oo kaliya aanay ahayn dhinacyada ku kala daaban inay sabab u yihiin marka wax oo qaab noocaas ah hadii loo eego dawladda Soomaaliyeed saddexdii talaabo ama dhowrkii talaabo Axmed Madoobe ay ka qaaday ilaa haatan way ku fashilantay laakiin wax ay ku fashilmi karin waa sharciyad dawladihii hore markay saan u fashilmaan sharciyaday siinayeen Axmed Madoobe laakiin dawladdan waxa ay leedahay khiyaar ah in ay u diida inkasta oo ay wajgabax iyo fashilaad ay ka qaaday inay u diida sharciyada maxaa yeelay sharciyada maamul goboleed Soomaaliyeed waxa haysa dawladda federaalka ah ugu dambeyn marka maxaa la filan karaa markaad eegto Kenya Soomaaliya xiisadda Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka qudheeda maxaa la filan karaa maxaa se la gudboon dawladda dhexe horta arrintani arrin oo wajiib badan leh
oo wadamo fara badanna lugaha la gelaysa oo Kenya iyo Ethiopia ka sii shisha marka dawladda Soomaaliyeed ay maaragtay ayday u taalaa marka waxina waa siyaasad waa shax waa ciidan marka ayday u taalaa shaxda sideedaba markii oo meel ay wax ka baxaan qofka kale ee dhinaca kala taagan ayay mar walba u taalaa inuu isdhiibe inuu shaxda meeshii uu ka qaado oo meel kale ka sii dhigo marka dawladda ayad maadaama ay sharciyada haysa oo ina aqoonsaneen waxa u furan inay maamul Jubbaland samaysa qasab maaha maamulkaasi inuu Kismaayo jooga Kismaayo waa caasimad ku meel gaar ah waxa u furan in magaalo kasta oo kale oo Jubbaland ah inay caasimad ku meel gaar u aqoonsata inay maamul ka samaysa in wixii dawladnimada ku xiran ee Jubbaland ay u haysa inay halkaas maraysa xitaa haddii gobol ama ka tirsan Jubbaland ay tigi waysa waxa u furan in maamul magaalada Muqdisho jooga ay samaysa gobolkaasna ay u aqoonsata gobol ka baxay sharciyada Soomaaliyeed oo maaragtay dawladaha jabhada soo gashay dhulay qabsataa taas macnaheedu ma aha maaragtay in dawladii ay u dhamaatay taas macnaheedu waxay tahay dawladdu way ka fikiraysaa dhulkanay ka maqan qaabkay ku heli lahayd laakiin waa in ay sharciyadeedii iyo diblomaasiyadeedii iyo jiritaankii dawladnimada inta karaankeeda ah inay ilaaliso aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Cabdishiiq ayuu kaasi ahaa oo qadka Skype-ka igu warramay isagoo ku sugan magaalada Nairobi Cabdullaahi aad baad mahadsantahay